qofka akhlaaqda badan, qofka ku sifaysan akhlaaqda wanaagsan, erayada toosan, indhaha araggasan, fiirmada asluubaysan, erayada hagaagsan, afka cadaraysan ee erayada carfayaahi ka soo baxayaan, kama shallaayo siismada iyo waxa uu bixiyey, mana suga marnaba in lagula mucaamaloodo qaabkii uu isaguba dadka kula mucaamalooday. laga yaabee in lagu abaalmariyo ama loo soo celiyo jawaab ahaan mucaamalo iyo dhaqan aan raalligelinayn, laakiin middaasi waxba kama beddesho akhlaaqdiisa. laakiin wuxuu xanuunsadaa oo keliya markuu ogaado in siismadiisii ama wixii uu bixiyey ay galeen ama ay ku dhaceen gacanta qof aan mudnayn. muhiimaddu waa inuu wax bixiyaa, niyaddiisuna ay jirto xagga Alle subxaanahu wa tacaala, sababtoo ah nin baa hadda ka hor wax bixiyey, markaabay ku dhacday gacanta nin tuug ah. mar kaluu bixiyey waxay ku dhacday gacanta nin taajir ah oo hodan ah. mar kaluu sadaqo bixiyey habeenkii isagoo dadku aysan arkaynin oo isqarinaya, naftiisana iska leh, Alle subxaanahu wa tacaala ha kuugu dembi dhaafo, markaabay sadaqadii ku dhacday mar kale gacanta naag saaniyad ah. laakiin dib buu ka ogaaday in ninkii tuugga ahaa markii sadaqadii uu helay oo Ilaahay ku beddelay oo tuugnimadii iska daayay shaqo fiican uu helay, kadibna uu bilaabay inuu shaqaysto noloshiisana hormariyo. ninkii taajirka ahaana wuxuu ahaa nin bakhiilah, markii sadaqadaa la siiyey ayuu bilaabay inuu wax sadaqaysto oo dadka masaakiinta ee faqiiriinta ama cayrta ee ka hooseeya inuu gacanta u taago wax siiyo. gabadhii zaaniyadda ahayd ee jirkeeda ka ganacsanaysay, saasna ilmaheeda ku quudinaysay, ayaduna way iska dhaaftay xumaantii oo Ilaahay nin wanaagsan oo xalaala buu ugu beddelay, allana arsaaqdeedii wuu u waasiciyey. haddaba qofka akhlaaqda badan kama shallaayo siismada, mana sugo abaalmarintii uu asagu bixiya la mid ah, laakiin wuxuu ka xanuunsadaa oo keliya markuu ogaado in siismadiisii ama wixii uu bixiyey ay galeen ama ay ku dhaceen gacanta qof aan mudnayn. weligaa iyo allaha iska ilaali, ha ka quusan sabarka. haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala doono shay inuu ku siiyo, ilbiriqsi adigoo ishaadu gibirsan ayuu ku siin karaa. kama qarsoona ilintaada wax rajaynaysa ee dhabankaada ku soo daadanaysa, kamana qarsoona sidoo kale hirarka waaweyn ee murugada iyo tiiraanyada ee qalbigaaga dhex sabaynaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ma awoodi weyn inuu xaaladaada iyo adiga dhanba ku hagaajiyo, laakiin Alle subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay inaad gacanta u taagatood ku celceliso baryada. innii jazaytuhum alyawma bimaa sabaruu, anigu maanta waan ku abaalmariyey wixii ay ku sabreen dartii. haddaad sabarto, Allah subxaanahu wa tacaala wuu ku abaalmarinayaa shaki la'aan. ilaahay ma dhihin innii jazaytuhum alyawma bimaa salluu ama bimaa saamuu ama bimaa tasaddaquu, wixii ay tukadeen ama soomeen ama sadaqaysteen, ee wuxuu yidhi bimaa sabaruu, wixii ay ku sabreen. sababtoo ah sabarku waa cibaado aad gudanayso adigoo dareemaya misna uu xanuunku ku hayo. ma og tahay walaal, marka aad qalbigaaga wax ku eegayso, aragga indhahaagu wax micnaa ma lahan. aragga gudaha ee qalbigana waa ka xeel dheer yahay aragtida indhuhu ay wax arkaan. sababtoo ah aragtida qalbiga waxaa la jira dareen, laakiin aragtida indhaha caadigaa waa aragti uun oo keliya. iska ilaali, ha odhanin waan daalay, sababtoo ah dadka dhan way daalan yihiin. ha odhan waxaanahay qof wanaagsan, sababtoo ah dadka oo dhan way wanaagsan yihiin. hana dhihin sidoo kale waan murugaysanahay, tiiraanyo ayaa i haysa, walwal iyo walbahaar, walaac iyo dhibaato, sababtoo ah dadka oo dhan way murugaysan yihiin. laakiin waxaad tidhaahdaa alxamdu lilaah, Ilaahay baa mahad iska leh, dhammaanteen waan soconnaa, dunidan waan ka tegaynaa. haddii qof kugu duro ama uu kugu mudo midida carrabkiisa, isla mididaasoo kale adiguna ha ku durin oo ha ku mudin, maadaama ay suuragal kuu tahay inaad ku disho seefta dhoolla-caddayntaada. qofka ku dhibaya waxaad ku tidhaahdaa, waxaan ka baqayaa inaan kuula dhaqmo sida aad iila dhaqmayso oo kale, oo aad markaasi xanuunsato. shayga mustaxiilka ah ee aan suuragalka ahayn, shaygaasi waa kan aan adiga laguu qorin inaad samayso, ee maaha waxa aad ka caajistay inaad samayntiisa la imaato. gabadhu mararka qaar uma oydo nin ka tegey ama la hadli waayey ama sheeko la furi waayey ama qof daryeeli jiray oo ay weyday. gabadhu qalbigeeda ayay ka oydaa kadib markii ay ogaato
in kalsooni ay ku beertay qalbi kale ay ka guratay garabka bax, yacni kalsoonidii ay beertay ayaa loogu beddelay khiyaano kale. libaaxu markuu la jooga cagabaruurkiisa yar, yacni waa ilmihiisa yare, markii uu qaniino wuxuu iska dhigaa mid xanuunsanaya oo afka ayuu kala taagaa sidii wax xanuun daran hayo. micnuhu maahan inuu xanuunsanayo ee wuxuu barayaa kalsoonida iyo awoodda, sidoo kalena wuxuu dareensiinayaa inuu yahay mid awood leh oo qaniyadiisu wax xanuujin karayso. waxaa jira 10 shay oo aad u qurux badan. raalli ahaanshaha nolosha ayay kuu qurxisaa, dhoolla caddayntuna dhibaatooyinka ayay kuu yaraysaa, dembidhaaf weydiisashadu danahaaga ayay kuu guddaa, ducaduna waxay xaqiijisaa waxyaabo aan suuragal ahayn. qofkii raadiya saaxiib bilaa caybah keligii buu noolaadaa, qofka raadiya xaas aan nuqsaan lahaynna weligii wuxuu noolaadaa isagoo ah doob ama iskaabulo. qofkii raadiya qof uu jecel yahay oo aan dhibaatooyin lahaynna weligii isagoo wax raadinaya unbuu noolaadaa, waxna ma helo. qofkii raadiya qof u dhow oo haddana dhammaystiran weligii wuxuu noolaadaa isagoo naaqus ah. haddii arrin dad kale ay ku murugeliso, ogow inaad tahay qof dabeecad asala leh. haddii aad dadka kale qurux ku aragto, ogow gudahaaga ayay quruxdu ku jirtaa. qofkase mar kasta isku arka inuu isagu quruxsan yahay, dadka kalena foolxumo badan yihiin, gudihiisa wax quruxa kuma jiraan. sidaasi ogow. wuxuu yidhi allah: falaa yaxzunka qawluhum innaa naclamu maa yusiruuna wamaa yuclinuun. naftaada ha ku xanuujin fikirka badan ee aad ka fekerayso maxay u dhaheen sidaas, maxay arrintaa u sameeyeen. rabbigaa ku kalsoonow, kadibna naftaada ku kalsoonow. iyagu waa dad, waa bashar oo keliya, hadal unbay hayaan, nafcina kuuma soo jiidi karaan, dhibna kaama qaadi karaan. arrimaha dhaca xajmigooda ha ka weynayn, wax yar ha ka dhigin wax weyn, amarkaagana u bandhig allah subxaanahu wa tacaala. dadka waxaa ugu taag daran oo ugu daciifsan qof aan qari karin sirtiisa. waxaa ugu awood badan qofka caradiisa ka adkaada. waxaa ugu sabar badan midka faqrigiisa daboola ee aan laga dareemin. waxaana ugu hodansan oo ugu qanisan qofka ku qanca wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala siiyey. nin xigmad badan baa la weydiiyey, sideed ku ogaanaysaa ood ku garan kartaa qofka ku jecel? wuxuu yidhi, qofka i jecel murugtayda waa ila qaybsadaa, dhibaatadana waa ila wadaagaa, igama noogo markaan la hadlayo, simbiraraxada iga dhacaysana wuu ii dhaafaa, rabbigay buu i xasuusiyaa. qofkaasi waa kani jecel. ma og tahay dhakhtarku hal dawo oo keliya dadkoo dhan hadduu u isticmaalo uu yidhaahdo waan ku dawaynayaa, way wada dhiman lahaayeen dhammaantood. haddaba dadka oo idil ha kula dhaqmin hal usluub ama hal qaab oo keliya.